Abuukar Isaaq Ciidow oo ah mulkiilaha Roxan Mall oo ah mool ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay rag ay shuraaka ku yihiin moolkaasi inay ku dalbadeen saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya isla markaana ay dhibaato u geysteen. Abuukar oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay xoog kaga soo saareen raggii ay dhulka isku haysteen iyagoo u adeegsanaya saraakiil ciidan. Sidoo kale wuxuu dowladda Soomaaliya ka codsaday in arrintaani faragelin ku sameyso si uu u helo garsoor cadaalad ah. waxaa la yiraahdaa magacayga Abuukar Isaaq Ciidow waxaana la yaqaanaa Saydi Isaaq Ciidow waxaan ahay milkiilaha Roxan Mall waxaana isla leenahay Maxamed Isaaq Ciidow, Cabdirasaaq Isaaq Ciidow iyo aniga oo ah Abuukar Isaaq Ciidow oo aan isku qabanay isla markaasina ay ii adeegsadeen awood dowladeed waxayna ii adeegsadeen Jarnaal Gacmadulle iyo taliyaha saldhigga Yaaqshiid Bashiir Xuseen Fooley oo darajadiisu tahay Gaanshaanle. waxaa layga afduubtay ama layga qabtay ciidamada booliiska anoo ku sugan rugta Roxan Mall oo aan ka mid ahay milkiilayaasha. waxaa la geeyay saldhigga wuxuuna sheegay taliyaha saldhigga in aan u xiranahay jaranaal la yiraahdo Gacmadulle. taliyuhu saldhigguna oo soo amray taliyaha qaybta la yiraahdo Saadiq John. isla markaas waxaa la ii dhaadhiciyay qolka maalinta ku xigtana waa la baxay waxaana la ii sheegay in maxkamad la ii wado indhahana la iga xiray. waxaana la ii geeyay guri laygu garaacay oo guri qaas ah oo ahayn meel maxkamadeed iyo meel tuition ah oo dowladdu taabacsan tahay. garaacaas iyo dhibaatooyinkaasna waxaa iga soo gaaray gacanteedoo jabtay iyo cagahoo layga garaacay. 9 bishii waxaa layga soo waday gurigii waxaana i soo waday Maxamed Isaaq Ciidow wuxuuna i keenay eelaboorka waxaana la socday 2 baabuur oo askar ah. baabuur kale oo kaaribana waa laygu soo qaaday waxaa la keenay eelaboorka waxaana laygu hanjabay haddii aad soo noqotid in lay dili doono. waxaan ka codsanayaa dhammaanba mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed oo u horeeya madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayre, taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha CID-da iyo dhammaanba maxkamadaha dalka ka jira in la horkeeno cadaalad lana service gareeyo cadaaladda. waxaan u sheegayaa dhammaanba ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsato rugta Roxan Mall waxaan leeyahay moolkaas waa mool dhibaato ka soo socoto waa mool la doonayo in muwaadin Soomaaliyeed xaqiisa lagu doodsiiyo. waxaan u sheegay agaasimaha maamulka Premier in uu ka guuro asagoo i yaqaano inaan moolka wax ku leeyahay. waxaan kaloo u sheegay maamulada kaah iyo dukaamada meesha ka furan waxaana leeyahay walaalayaalow haddana walaalayaalow meeshaas waxbaan ku leeyahay mana nii ogoli inaad degnaantiin ka guura mas'uuliyadiinana ma qaadi doono haddii aadna ka guurina. waana mahadsantihiin. waxaan codsanayaa in mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed in arrintaas ay wax ka qabtaan.